waxaan rabaa inaan halkan ka taabto wax yar oo aan badnayn oo ku saabsan doorka macallinku ku leeyahay nolosha bulshada iyo horumarkeeda. macallinku waa lafdhabarta ummad walba ee adduunka ku nool, halbeegyada ama indicatorska lagu cabiro dal hormaray ama ummad dhisantay oo xadaaradeeda, ilbaxnimadeeda iyo aqoonteeduba ay cudoon tahay oo ay bislaatayna waxaa saldhig looga dhigaa macallimiinteeda sida ay u yihiin kuwa la qiimeeyo oo maqaam sare iyo mansab sare la geeyo. marka aad macallinkaada siiso waxa uu kaa mudan yahay oo aad dareento kaalinta uu ku aadan yahay, meesha hadduu ka baxo in dabayli kaa soo gelayso ayaa waxaa halkaas ka dhalanaya in macallinku dhiirigelin uu helo, uu noqdo well motivated ama mid dareemaya qiimaha bulshada uu ku dhex leeyahay. haddii aan wax ka taataabto muhiimadda macallinku ama kaalinta uu ugu jira bulshada, macallinku waa hagi. macallinku waxa uu hagaa bulshada, waxa uu ku hagaa in qofku wax badan ogaado. waxaan isweydiinaa waxbarashay maxaata waxaa badan in qof wax uu baranayo ee muddo badan uu kusoo dhex jiray haddii la weydiiyo shaygaas keliya musdalaxaas maada ahaan inay ku adkaato oo uu qeexi waayo. waxbarashaduna waa laba erayo isu tegay oo ah wax oo ah wixii la baranayay iyo barasho oo ah falkii la samaynayay. falkaasna waxaa sameeya qofka baraha ah. aqoontuna waa ogaanshaha wax aadan hore u ogeyn. dad maanta ogaato qaab cusub oo wax loo sameeyo, waxaasi ha noqdeen conceptually ama ha noqdeen practically, aqoon ayaa kuu korortay. kadibna waxay isu bedeshaa, waa la kaydiyaa waayo aragnimo. kadibaad waxaad soo saartaa iyadoo aad inta la saaxiibtay kugu degtay oo si fiican aad u fahantay. qofkaas ayaa la yidhahdaa marka khabiir ama waayo arag. macallinku marka waxaasoo dhan ayuu ku hagaa bulshada. waxa uu kaloo macallinku muhiim u yahay bulshada waa dhiiriye ama waa dhiirogeliye. waxa uu ku dhiirogeliyaa ardaga uu waxbarayo ama dadka uu waxbarayo in haddii wax ku adkaadaan uusan ka soo jeesan ee uu waxaas si uu derbigaas u dumin lahaa oo falankeeda galo. waayo haddii wax kugu adkaadaan oo aad mari weyso, meesha laga leexdaa meel kale laga soo maraa. ujeedaduna waa destinationka ama meesha aad u socotay inaad gaarto, laakiin waa inaada jabin. waa kii hal abuurku ama suugaanleydu ay tiraahdo waxa ay barwaaqadu buurta ugu xagaysaa raggu inuu u baratamo. haddii qof walba uu iska noqon lahay malyan dheer ama wax alla wuxuu rabo si fudud uu ku heli lahaa, qiimo ma yeelateen, tartan ma yimaadeen iyo wax la kasbado oo juhdi inta la geliyo lagu kala sarreeyo, dadku mudnaan iyo meeqaan lagu kala siiyo, dadkuna isku mid u ahaan lahaa. marka in dadka qaar ay maskax furan yihiin qaarna wax ku adag yihiin waa xigmadda ilaahay iyo sunnada kowniga ee insaanka lala abuuray ee ku beegan. macallinku waa waaniye, wuxuu ka waaniyaa waxyaabaha xun ardada iyo dhammaan bulshada. waxa uu kaloo sameeyaa waa barbaariye, wuxuu barbaariyaa oo kobciyaa maskaxda ardaga. barbaarintu waa laba nuuc: inaad qalbigaada iyo maskaxdaada aada cudayso ood barbaariso, iyo inaad jirkaada barbaariso. jirkaada waxaad u barbaarisaa inaad wasaqda ka ilaaliso, cunto dheelitiran aad siiso, isla markaasna xilli ku filan aada hurudo si aad physically ugu noqoto qof caafimaad qaba. waxaa kaloo jira barbaarin kale oo ah nafta in la barbaariyo iyo maskaxda, oo ah in cilmiga lagu shugo ilaa ay ka wax badan ka qaado, ilaa ay ka buuxsanto maaha. waayo cilmi lama dhamay karo. fowqa kulli dii cilmin caliim. qof walba oo wax yaqaana mid kale oo baradheereeyey oo isaga ka daran ayaa jira oo marka uu arko uu la yaabayo. macallinku waa horumariye, waa hogaamiye, waa bedele, waa dulqaate, waana soo saare. waxa uu soo saaraa injineerkii, wuxuu soo saaraa dooliyihii, wuxuu soo saaraa dhakhtarkii, wuxuu soo saaraa hogaamiyihii, wuxuu soo saaraa maamulihii, xisaabiyihii, suuqgeeyihii, farsamo yaqaankii, etc. iyo wax la mida. macallinku markaas lafdhabarta bulshada ayuu ku jiraa. waxaana lagu mataalaa inuu yahay geedku. waxa uu leeyahay xidido ama xidid. shaqada uu dhirta ama geedka u qabtaana waa inuu macdantana u soo nuugo, biyahana uu siiyo. kadib macallinku waa midka u soo nuugayay xigmadda iyo wanaagga iyo cilmiga bulshadaas gaarsiinayay. sida guudna laba qaanuun ayaa marka aqoon laga hadlayo adduunyada ka jirto noolaha lala abuuray. wax dad sameeye ma waa wax jira. waa qawaaniinul qaabaad wax la yiraahdo iyo qawaaniinul insaan wax la yiraahdo.
qawaaniin ulqaabaad waa rule of jungle ama waa shuruucda kaynta oo dugaagu midba midka uu ka weyn yahay oo heertiyo midba midka uu ka weyn yahana uu cuno saasa lagu kala adkaadaa insaankuna waxa uu ku kala dambeeyaa qawaaniinta iyo shuruucda iyo xeerarka ay qorteen waxaasna waxaa saldhig iyo buddhig u ah aqoontu intay la eg tahay insaanka markaas uu haysto taasina waxay ka imaanaysaa macallinkoo la qiimeeyo maqaamkiisa iyo maktabadiisana la geeyo diintannadu haddaba aad iyo ay u maamuustay wax badanna ka tiri tacliinta oo waxaa ka hadlay hadal la sheego midka sheega hadal la sheego inta sheegta kan ugu wanaagsan oo ah aayad suuraddii uu ku furfuranayay sheekh cadaawe barakallahu fiihi oo ahayd suuratul calaq oo ahayd aqrinta muhiimadda iyo mansabka ay u leedahay waxbarashada weliba waxaa jirta marka laga hadlayo luuqadaha ama luuqaadka 4 skill ama 4 xirfadood ama wax loo yaqaano 4 mahaaraat fi luqa waxaa ka mid ah qiraa'ada ama akhriska diintu waa shayga koowaad ee qofka ay ku baraarujisay waayo wax walbo meel ku qoran uu arko waa inuu akhri karo gaar ahaan marka luuqadiisa loo eego luuqado kale hadduu ku darsadana kaba sii fiican oo dadka waxa uu dheer yahay waxyaabo kale macallinku waa dulqaate waa dul badan yahay waa xaliim wuxuuna u dulqaataa waxyaabaha soo gaaraya oo ama arday ka soo gaaraya ama meel walba bulshada uga imaanaya waayo waa qofka ugu dulqaadka badan ayaa la sheegaa qofka dadka ugu dulqaadka yar hadduu macallin noqdo waxa uu soo baxaa isagoo inta si fiican waayaha iyo duruufuhu u jara bareen loo sameeyey oo bay-adu inta qaabayso wuxuu noqdaa qof aad iyo aad u dulqaad badan marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu